بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشركي saddexaad ee xarunta xarun maanta wuxuu ku saabsan yahay in qofku uu intaanu falin ka fiirsado imise qoys ayaa ku burburay gabadh tiktok ku jirto gabadh kala soo maqashay imise qoys ayaa ku burburay gabadh gurigeedii burburisay oo keligeed caruurtii la balanbalaysa ay dumar kale ku tiraahdo haddana hee ninkaagu caruurtaada aan xanaanad ka soo kaxaynay Finland dumarku waxay oran jireen haddaan ninkaagu xanaanada caruurta ka soo kaxaynayn muxuu ninku leeyahay yani aan waxaan ku oran jiray ninku hadduu inta kale ku fiican yahay xanaanada ka soo kaxaynta sankaaga ka tigaysa ragana waxaan ku jiray wareere gabadhaadu weere soo basari ma aha oo nadaafada kuma xuma aha sideeda kale soo qof fiican ma aha ku hayso gabadh qabo gabadh guriga ka nadiifsan qabo qofku dhamaystiran ma jirto marka imise qoys baa ku burburay wax yaro basiida qof tiktok ama youtube ama snapchat ama facebook laga maqlay ana waxaan garanayaa dumar guryahoodii burburiyad guryaha kala sii burburinaya yani waa camal shaytaan waxa la yiraahdaa shaytaanku dadka shaytaanku ragga suurka wuxuu xiray dumarka rag dabeecay waxa uu doonayaa waxa uu leeyahay aakhiro ilaahay ballantu la galay dadkan ka haysan kara iida balani ilaahay waa isii inaan dadka duubsan karo waayo cadaabta keligii ma doonayeen oo kale marka gurigeedii bay burburisay guriyo kale burburinaysaa adigu waxaan ku dhinaad tala dadka siisa maaha nin laba dumar oo hore soo furay waxaan ku dhaarare labadii hore dumaraad eedeynaysaa haa dee waad qaldan tahay waa isu fiirso adaa wax kaa siihiin oo fiirso dumarka una sii eedeynin laba dumaraad furtisama adaa wax kaa siihiin dumarka maaha markii hore waxaa laga yaabaa gabadh xun ay kugu saahid laakiin mar labaad u malayn maayo kuudha aday wax kaa siihiin marka lama doonayo in qof kasta is xisaabiyo mid furay ama laba furay baa nin kala tala siinayo aruma qalantiina tala qof siisaado tala u qalanto xaaskaagii reerkaagii bad haysan lahayd marka iska ilaaliya qofka tala ka qaadanaysaan dadka khadka ka soo baxaa badankoodu 90% tala fiican ma hayaan qofkii cilmi leh qofkii aqli leh aqligiisa isticmaalaya dadkaas uu ka fogaanaya kama tala kama qaadanayo gurigaaga intaad burburin u fiirso qofka talada ka qaadanayso qofkana adaa markii hore doortay shukaansiga Soomaalida waa iska xun yahay shukaansiga reer galbeedkuna inama dhaamaan inagu waxaan u baahanahay shukaansiga barno qof kasta loo doorto hooyada iyo aabaha inay qof ku doorana waa diiday aduu qofka khadka ka baratay ama aroos ka baratay ama xaflad ka baratay ama qof kale ku barayna 3 sano ka bacdi waa isfuraysan waayo deysmo qalad waxaad ku jeclaatayna waa qalad wuxuu kugu jeclaadayna waa qalad marka waxaan idinku la talin lahaa barta sida qofka loo doorto qofka ku qalma ha ku dooran qofka waan jecelahay waxa aad ku doorataa casharka maanta wuxuu ku saabsan yahay kan waxa aad ku doorataa qofkan ma yahay qof aan heshiinayno jacaylku iska burburaya shahwada weeye waxa hore waxa aflaantaad ka daawatay waxa meelaha ka akhriday waa bug waa iska been guri marka la isugu tago nin iyo naag guri ay isugu tagaan gabadhu ay ogaato rag inay wixii runta soo baxayso